sheekadii ugu cajiibsanayd wuxuu yiri waxa imanaya madaxweynihii Taiwan baa imanaysa halka markii aanu barnaamijka ka soo baxnay baa la yiri hal waraysto anana waxaan diidaynay in sirtu baxdo ay saxaafadu yara qodqodo marka wuxuu yiri waxay 200 oo qof bay wadataa waxaan ka fikirayaa meeshii aan dejin lahaa marka waxaan soo jeedinay labadii hotelkii xagan labadii hotel dhinacaas isxiga aaga in loo xidho ay halka ku soo degaan marka Faraton waa nin aqoonyahana waa nin 32 sanadood ee dalku jiray ka shaqeynayay waa nin wax badan ilaa golihii hore aanu ku wada jiray waa nin aan looga baqay maanta waa mas'uul oo golahana isku wadi kara marka ma qabo cid inay uga dhowdahay Faraton sida kale waxaan maqlaayay inaan xildhibaan aan hadda ka hor waxa dhacay Boorame program golihii deegaanka oo aanu ugu tagnay mar isqabtay marka gudidayadii ilaalinta hantida qaranka marka gudoomiye waxaan noo ahaa Obama anag xigeenkan ahaa waxaan xusuustaa subaxii 9 baanu galay afartii baan soo baxnay iyagoo gacmaha haysto aan heshiisino hawshii naga dhamaatay marka waxaan ka xumahay inuu mudanuhu yiraahdo wasiir baa hadlay oo wuxuu yiri Somaliland si ay u horumarto waxa la siiyo Faraton oo macnaa uu ka xanaaqay oo yiri wadaad ma yadab darayn wasiir hooyadii wiil dhashay buu ahaa ragaad buu ahaa nin u turaayo Somaliland buu ahaa Somaliland inay wax wada yeelato waa muhiim wasiirka hadlay kuma wasiir ku-xigeenka caafimaadku ahaa marka aad buu dadaalay qofka aragtida fiican mar walba wuxuu danaynayaa Somaliland si kasto duruufo iyo xaalado u dhacaan inay wada socoto